أهمية وحكتوصية استغفارتا الله تبارك وتعالى قرآن كريم كامل كم إذا وحوس كل مانية توحيدك يا استغفارتا توحيدك أصل كديتا أي وحلو الله مانية استغفارتا فحكم إذا قوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات لا إله إلا الله وحلو حجيي واستغفر استغفارت الوحج حكم إذا آيات مركز آخرين فاستقيموا إليه واستغفروه استقامة أصل وحاو التوحيد كدمنا استغفارت الوحج وحكم إذا الله تبارك وتعالى وحي ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم لا إله إلا الله محاكو حقا استغفروا ربكم ساس دردد باللبداسي اسكو حقا وتوحيد كيرو روح حقيقي إن بدنا إلهي تنبداف ويديستاي وحليه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار دينتو waxay ku taagan tahay waa tawxiidka la xaqiijiyo laana daacadi ba galis iyo ruuxu dambiyada uu galayo oo uu ilaahay dambi dhaaf weydiisto diintu ba intaasay ku taagan tahay bulay jimaacu diin waxa kamida ahmiyada istighfaartu ay leedahay waxyaalaha tilmaamaya nabigeena maxamed sallallahu alayhi wa alihi wasallam aad uu u badin jiray isagoo ilaahay u dhaafay dambigiisii horiye kii dambaba أيها هذا وآد قد ذلك شيء استغفارت حديث في صحيح مسلم قصوا من حديث الأغر المزني وحوليه هي رسولك صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أنه الله وحان دمداف ويدي سنة يمانكي بقل قر حديث أبو هريرة سيدك عليه في صحيح البخاري نبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة إلهي بانكو دارتي مالك قديسة أنو إلهي دملاف وحان ويدي سنيا تضباتا قور كبضا أيان إلهي دملاف ويدي سنيا وأن لقنا يا ولي استغفر الله وأتوب إليه مركا نبي قالنا صلوات ربي وسلام عليه سقوا له دملافي هذا نمحوه بدسني محو بديني علشان واحد قرانيسا سير با ku jirta istighfarta saan arki doono waa dhikri ilaahi adkaarta loogu dhawaadana kamida fawaa'ida uu leeyahayna adduuniya aakhirada ruuxa uu saameyn ay ku leedahay oo helayo intaas hadaan ahmiyadeeda kaga soo baxno faa'iidooyinka ay leedahay wax ka tilmaan istighfarta waan tilmaami doonaa qaabkee baa loo istighfarsadaa maxaa nabiga ka soo sallallahu alayhi wasallam maxaa quraan ku soo arooray wax kamid istighfaarta faa'iidooyinkeeda waxa kamid ah naylu rahmatillahi tabaaraka wa ta'ala ilaahi naxariistiisa jid lagu gaadho waa sabab ku gaarsiiyo ilaahi naxariistiisa naxariista rabbina waxay soo wada galaya naxariistiisa adduunyo iyo naxariistiisa aakhiro waxa ku tusaya نبي الله صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مركو قوم كيس لهلي وحكيري يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ما إلهي دمبلاف ويدي ستان سلا يدين كنا حريصكم سيداس درادة استغفارته وسبب من الأسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى إلهي نحريستيسا يماشي تالو الدنيا أخرى إنا تهشو أسباب تيدا وحكم إذا استغفارت ونحريستيسا وحكم إذا جنة ونحريستيسا وحكم إذا رضيهس ونحريستيسا وحكم إذا يعني وحوي نعم كيسا الدنيا نحريست الله تبارك وتعالى ويقدويت وسعت رحمتي كل شيء إلهي نحريسي سوي قدوين تاي وحول بيقادا وحكم إذا استغفار تفائدوين كذا وحكم إذا
adduunkaa lagu barwaaqoobaa hadday bulsho tahay hadduu qoys yahay hadduu shakhsi yahay barwaaqo adduunyo ayay furo u tahay qur-aanka kariimku meelo badan buu ku tilmaamay roob inuu da'o oo samada naxariisteeda la helo in carruur iyo xoolaba laysa siiyo in aseendooyin iyo beero waaweyn iyo biyo qulqulaya webiyaal laysa siiyo iyo ilo biyo ah waxaasoo dhan waxaa furo u ah istikfaarta nabiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyi salaatu wassalaam waa kii lahaa faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara qowmkaygii rabbiyo waxaan ku idhi war ilaahay dembi dhaaf weydiista alla waa midka dhaafidda badani haddaad ilaahay dembi dhaaf weydiisataan maxaad helaysaan yursil الsamaa'a calaykum midraara samadii buu ilaahay idiin soo diray waa roobkii iyadoo dararsan dhibicdii iyo roobkii oo isdaba jooga oo aan kala go'aynin baa laydiin soo fasaxayaa wayumdidkum biamwaalin wa baniin haddii roob la helo barwaaqaa imaan soo maha dhulkuna wixii ku jiray buu soo saaraya kadibna bini aadamku markuu ladnaado oo barwaaqo helo maxaa ka dhalanaya xoolihii waa helayaa waana dhalayaayo wuu tarmayaa wayumdidkum biamwaalin wa baniin alla wuxuu idiin siyaadinayaa oo idin siinayaa xoolo iyo carruur wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara aseendooyin iyo beero waaweyn iyo webiyaal qulqulaya waxaasoo dhanna waa laydin siinaya maxaad ku helaysaan waxaasoo dhan soo barwaaqo adduunya maaha haddaad dhibicdii korna hesho dalagii hoosena soo baxo xoolihii tarmaan bini aadankii tarmo